كان أبي الله يرحمه قبل 20 سنة أيام مر الله لي مركا أن ويديو أنكر هذا أب محي سيدا ونغم ويدي محي سيدا أهلي ويني يعني محي سيدا كدقي أيو ما حد يجرالوح يقول جواب جري إن سيدا وحن نقول ذا إن شاء الله مركا أنو دولتها لنا لكن واحد مغطى إنه يعني عنده رجع يعني رجع هوب أيو ليها مقرنسها لكن ما أنت أيام واحد سويدينيا maxaa inaga qaldan maxaa inoo diiday inaan bini aadam noqono maxaa inoo diiday inaanu dawlad iyo nidaam samaysano hadda barnaamij kobci fikirkaaga ayaa maanta wuxuu idin la wadaagi doonaa yani jawaabta waxa inoo diiday inaanu nidaam iyo dawlad samaysano buugaagta maanta idin la wadaagi doono oo ka jawaabi doono su'aalaha iyo su'aalo fara badan oo aan isweydiinayo iyo qof walba oo aqli la isweydiin karayo buugaagta idin la wadaagi doona maanta waxa ugu horeeya buugga la yiraahdo waxa la yiraahdo ciwaankiisu the rule of the clan ama qawaaniinta ama shuruucda qabiilka buuggan waxa qoray ninkii la yiraahdo Mark Swiner ayaa qoray buugaagta kale idin la wadaagi doona waxa la yiraahdaa buug la yiraahdo Nomads and States in Africa buugga reermiyiga iyo dawladda ee Afrika ayaa la yiraahdaa buugga saddexaad maanta aan soo koobi doono magaransa waxa la yiraahdaa why nations fail maxay ummaduhu ama qaar kamid ah society-du maxay u guuldareystaan maxaa keenay guuldarada inay guuldareystaan wadamada qaarna ay hormaraan ugu dambeyn yani waxa idin la wadaagi doonaa in yar ka soo qaatay buugga la yiraahdo ama qoraaga weyn oo la yiraahdo Ibn Khaldun buuggiisa le muqaddama ama waxa la yiraahdo introduction of the history aydan ila wadaagi doonaa su'aasha isweydiinayna waxay tahay maanta waxa jira society badan ama dawlado fara badan ama ummado fara badan ee lagu yaqaan dib u dhaca ee lagu yaqaan dhaqan xumada ee lagu yaqaan dagaalada sokeeyay ee lagu yaqaan badownimada ee lagu yaqaan yani jaahilnimo waxa lagu yaqaanaa ummadahan dib u dhacay kale waxa lagu yaqaanaa inay magaransa ka jiraan yani waxa la yiraahdo ururdiimido dadka laaya dadka dhaca waxa la leeyahay waxay doonaan sameystaa ayagoo magaca diinta ku qarabanaya haday tahay al-shabaab iyo haday tahay Taliban iyo magacyada kala duwan leh dadooga dib u dhacay aan dhaqan xumada iyo waxaan ka soo sheekeyno le waxa kamid ah ama ku guuldareystay in nidaam iyo dawlad midna sameystaan waxa kamid ah yani bulshooyinka la yiraahdo waxa ugu horeeya kamid ah bulshada Soomaalida ayaa ugu horeysa waxa kamid ah bulshada Afghanistaniyiinta waxa kamid ah bulshada yani dawladaha ama dadka loo yaqaan Yemen-ta waxa kamid ah Liibiyaanka waxa kamid ah Suudaanta iyo qaar kale kamid ah magarasadeen yani inta oo dhan waxay kamid yihiin yani waxay leeyihiin dhaqano isku mid ah waxyaalo magarasada ay dhiba wax ba ka wada dhaxeeya intana dawladooda aan soo sheegnay magacyadooda iyo qaran magacyadooda aan sheegin waxyaalaha kamid yihiin dhamaantood waxa weeyaan waxa la yiraahdaa yani structure-ka society ama qaab dhismeedka bulshada u dhisan tahay ayaa waxa la yiraahdaa waa clan society waa bulsho qabiil iyo waxa ku dhisan waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waa clanism loo yaqaana waa bulsho qabiilka iyo waxa xiiseesa waa bulsho la yiraahdo honor based society waa bulsho sharaf iyo waxa inta badan raadisa waxa laga yiraahdaa waa bulsho culture la qabiil gibigeedba ku dhisan waa bulsho magaranaysa wax ugu horeeya ee qiimisaba uu kamid yahay wax la yiraahdo qabiilka okay buugan wuxuu u qaybinayaa society-gu wuxuu u qaybinayaa laba qaybood buu u qaybinayaa society-du society the society of contract la yiraahdo waa society ama bulsho ka dhaxaysa wax la yiraahdo ahdi wax la yiraahdo heshiis baa ka dhaxeeya society-gan the main center-ka ama wax ugu muhiimsan wax dhex bartamaha ugu muhiimsan wax la yiraahdo waa individual yani qofka shakhsiga ayaa ugu muhiimsan qofka wuxuu geysto dimbigu geysto qaladku geysto asaga lagu la xisaabtamaya yani wax kale oo dima jirto aabiin wax ma sameyn walaalkiin wax ma sameyn adiikiin wax ma sameyn qabiilkiisina wax ma sameyn asaga lagu xisaabtamaya wax allaaliyo wuxuu geysto haduu faa'iido asaga helaya hadda ciqaabtaan asaga ciqaabta helaya wax kale lagu xukumayo malaha
sidoo kale waxaan jira society waxa la society of maxalla society of states balla waxa weeyaan waa society of honor yani waa bulsho yani gibigeeda qiimeysa honor ama society ama waxa yani sharaf iyo qiimeysa waa bulshooyinka waxa lagu yaqaanaa bulshooyinka reer miyiga ayaa lagu yaqaanaa arrinkan bulshooyinka reer miyiga ayaa lagu yaqaanaa society of honor ama society maxallaha يعني lagu yaqaano maxallaha honor based society loo yaqaano waxa marka society-gan yani qofka individualka wax allaali wuxuu muhiim ma aha qofka muhiim ma aha qofka shakhsiga wax allaali xaq ma laha midna ma laha yani waxa xaq iska leh waxa society waxa muhiimada leh waa qabiilka ma garanayaan sidoo kale bulshooyinkan ma garanaysa ku dhisan waxa la yiraahdo the clan society ku dhisan inta badan waxa yiraahdaan waa laba qayb bay noqotaa magarazade bulshooyin aan dawlad lahayn iyo wax nidaam aan lahayn iyo bulshooyin dawlad leh laakiin dawladdu waxa yira waa weak waa wax aad u daciif dawladii magarazaan bulshooyinkan dawladda yani qabiilka ayaa ka xoog weyn yani qabiilka ayaa dominant ah qabiilka ayaa ka xoog weyn dawladda ka xoog weyn magarazaan qabiilka ayaa wuxuu ka soo horjeedaa wuxuu kala qeybiyay wuxuu qaybsaday ba dawladii يعني دولتي أنتي أنا قبيل بيكون إسنتهاي أما دولة مش قبيل بمشها معمولة يعني دولة هدي جتنا دولة دقار دي جتنا وهو حس كما قعياله سك ضعيف ما جرس أنا مال بجارس سن قبيل كأم بحوجله بلشوين جو حكم إذا أنا دولة لهين أما قبيل كل حجوين يا دولته وحكم إذا الصومالي ذا وحكم إذا أفغانستانيين وحكم إذا يمن وحكم إذا قبيلة فربنا أي كم إذا وضمد الدولة كجتنا لكن دولة قبيلك أيها لفتكيس بقى سامين بوليه هاي أود بوليه صوت بلشدي بقى كل سنة قبيل بكل سنة دولة دي نوع حنقنزة واحد يرويك ضعيفة سيدا دولة كينيا أو كلاته هي دولة كلام مجالس ده يعني عربها أنتو بدن وما قعيال قف شخصي بقى ماشي سكور تاجن أنت بدن يعني وحول بقى قبيلك واحد الإرادة يعني وحول بقى سجى كحجوين قبيلك waxa horeyna waxa jira saddex qabiil baa jiraan horeyna tusaale ahaan qabiilkii A and B and C waxa laga yaabaa qabiilkii A waxa la yiraahdo linear maxalla segmental lineage system taasoo macnaheedu waxa weeyaan qabiilkii A ka soo qaadba wuxuu u sii kala baxbaxaa qabiilo fara badan buu sii baxbaxaa markuu ka sii baxbaxo yani kan wuxuu ka soo horjeedaa kan buu ka soo horjeedaa kan wuxuu ka soo horjeedaa kan wuxuu ka soo horjeedaa يعني إيه قبيلة ده هوسي مادة أما يوكل بحنبا أي قلت تركض مدح سكولة جرا مجرزة عن واحد مودي إنه هالقبيلة هاي لكن أي قلت تركض مدح سكولة جرا أو إسديد إنه ده مرة بدقال لي يا بروبلم سوا لكن إيه واحد مدوبان قبيلة ده هدي إيه واحد مدوبان أما أي مدو نقضان كليه وعكليه كل شيء محويا مرك قبيل كبيه أما سي أصور قبيل كده ده إيه أصور ومرك كليه قبيلة مجرزة أما مدوبان أما وحن كل شيء وهشيسك كليه مجرزة قبيلة كده حيوان قبيل كأردن وكدنيا وكسر جدا دولة ده كسر جدا أيو ديدنيا با دولة قبيل كقاب كبلشوين كم لسنين با أيا بقاب أنا الدولة وسمسنا أنا هين با دولة دي نظام كي بديدن با سيدا كله وحجرة أن قبيلة كقولست إن النظام إيه دولة سمستان يكلا دمينا سمستان يا قبيلة أنا كقولي سنين دور بقول أصحنا ضد أنا كقولي سنين إني دولة إيه نظام من أنا سمسنين قبيلة كقولستي إني الدولة إيه نظام سمستان وحكم إذا قبيل كلا توتسيجا وحكم إذا قبيل كلا هومان وحكم إذا تركمان قبيل كلا وحكم إذا منغوليان قبيلة دقة يعني أي شيء مالها كله مجرسان وعكوجولستين أيوة قبيلة إني الدولة سمستان قار كلام واحد جل كوجول دراستي أين الأصول رجلين إن الدولة سمستان قبيلة ده واحد كم ده صومالي ده كم ده أفغانستان أنت كم ده عراقيين تا كم ده باستوريا كم ده يمن تا كم ده ليبيا كم ده يعني السودان تا كم ده قبيل كلا نور ليرة قبيل كم ده even قبيل يعني سيريان كم ده أوكي سؤال بان سويدينا واحد تاي محا قبيلة الأصول رجلية إن الدولة سمستان إن نظام سمستان محا سكانة قبيلة كله إن الدولة إيو إحنا نظام منا يعني سمستانين
okay jawaabtu waxay noqonaysaa waxa la yiraahdo qabiiladan dawladda sameeysta ama nidaamka sameeysta waxay ku tiirsan waxa la yiraahdo stratification ama dabaqaad qabiiladu way kala sareeyaan way kala amar qaataan way kala baqdaan way is ixtiraamaan taladana qabiil baa loo daayaa magaranaysan inay wax maamulaan kala dambeynta iyo is ixtiraamida iyo kala baqashada waxa doontaba dhehe yani waxay keenaysaa wax yareynaysaa fawdadii iyo waxay keenaysaa dawlad la'aantii iyo problemkii ba yareynaysaa dabaatan waxa way guulisanaya marka qabiilnas inay dawlad sameystaan qabiilada way u sahlanaanaysaa sababtoo qaar baa lagu yaqaanaa inay magaranaysa dawladda yani qabiilada kale qaar ba ka sareeyaan kala sareynta waxay keenaysaa inay nidaam iyo dawlad midna sameystaan sidoo kale qabiilada ku guul dareystay inay dawlad iyo nidaam wax sameystaan waa qabiil la yiraahdo maxaa la egalitarian baa la dadka oo dhan wuu siman yahay qabiilada dhan wada siman yihiin midna kama awood badna midna kama xoog badna kulli waa la wada siman yahay haddii sidaa noqoto sheekadii waxay manaysaa anta amiir wa ana amiir fama yasuuqu alximaar adigoo amiir baad tahay madaxweyne tahay aniguna madaxweyne noqonaya haddii aan hogaaminayo weeyaan waxay imanaysaa bilaa dawlad iyo nidaam bay imanaysaa yani waxay imanaysaa inay bulshooyinkan ka hooseeyaan xayawaanada inay ka hooseeyaan magarasade dawladda meesha waxay imanaysaa inay dawlad iyo wax nidaam midna iman meesha foodo noqoto magarasane ay qabiilada odayaal qabiila inay meesha yimaadaano odayaasha qabiilku laftirkoodana waa iska odayaalaan iska daciif oo aanan wax badan oo awood aan lahayn oo wixii loogu talagalay aanan intaa ka baxsan samayn karin sidoo kale waxyaalaha keena inay kuwana dawlad sameystaan kuwana inay sameystaan waxaa kamid ah settlement waxa la yiraahdo qabiiladan dawladda iyo nidaamka sameystay waa qabiilo degan meel degan magaranaysa aanan gurguurin waa qabiilo deegaan leh meel degan aanan gurguurin waxyaalaha kamid ah keena inay dawlad sameystaan kuwana inaanan sameystaan waxaa kamid ah waxa la yiraahdaa qabiiladan dawladda sameystay waxay degan yihiin dhul barwaaqo ah ay degan yihiin ma degan dhul saxara ah oo problem iyo dhibaato ma degano waxay degan yihiin meel barwaaqo ah magaranaysa oo beero iyo wax fara badan oo economy leh ay degan yihiin magaranaysa sidoo kale yani way adag tahay ummadaha reer miyiga ama xadaaradu ama magaalo ilbaxnimada ku yartahay inay dawlad iyo nidaam inay sameystaan way ku agtay sababtoo ah reer miyigu waxaa lagu yaqaanaa problem iyo dhibaato ayaa lagu yaqaanaa yani maaha dad sameysan karaya ama nidaam iyo waxa lagu yaqaano maaha magaranaysa waa ummad waxaanu nahay ummad caqiidada ugu horeeya ama waxyaalaha aaminsanta ugu horeeyaba uu yahay wax la yiraahdo qabiilka la yiraahdo magaranaysa ummadda day nooca taana way adagta magaranaysa wax nidaam ah ama dawlad ah inay sameysato xitaa maanta masaajidda qaar baa wax la isku haystaa qabiil iyo qabiil kama hogaaminaya iyo annaga askali annaga nidaam kale ayay maanta maraysa xitaa waxa dhacda maanta qabiilnimadii iyo wixii magaranaysa society ku dhisnaa qabiilnimada maanta in meelihii aanu ka nimin laga keeno yani wadamada horumar maanta la keenay ayuu buu ka sheekeynaya magaranaysa exactly waliba buu wuxuu ka sheekeynaya qabiilada magacyadu sheegaya xitaa waliba okay waxaanu isweydiinaynaa maanta waxa la yiraahdo qabiiladan xitaa lagu yaqaano inay wax qarxiyaan inay magaca diinta ku qaraabtaan laayaan xitaa waa qabiiladan ka sheekeynayna ee ku dhisan qabiilka iyo casabiyada iyo waxa ku dhisan haddaan isweydiino taariikh haddaan 200 oo sanadood dib ugu noqono waxaad arkaysaa inaanan waxba dawladda aanan intaan lahaynba yani waxaa jirta xilligii magaranaysa aanu gumaysigii xornimada ka qaaday 1960kii yani 60kii laga soo bilaabo ilaa 69kii ayaa waxaa la sheegaa iska dawladda loo rayid ayaa la sheegaa dabeetana 69kii ilaa 1990kii in magaranaysa 90 maxaa lahaa ilaa 90gii ilaa 92gii magaranaysa ayaa waxaa la sheegaa inay jirto magaranaysa dawlad laakiin waa dawlad waxay ahayd nin qura lahaa magaranaysa dawlad waxay ahayd nin qura iska lahaa magaranaysa even haddaa xitaa nidhaahno dawlad ba ahayd waxay noqonaysaa muddo wax ka yar 40 sanadood wax ka yar ayay noqonaysaa inaanu dawlad ahayn laakiin wixii ka horreeyay dhan marna leena gumaysanaya marna nimiba ahayn wax dawladda dad nidaam iyo dawlad samaysan karaya maba nihinba yani sababtoo ah qabiilka iyo waxa kasoo horjeeda iyo qaabka qabiilka aan u nahay ama qabiilka kasoo horjeeda ayaa kasoo horjeedaba
waxaa isweydiinaynaa laakiin ibnu khulduun wuxuu leeyahay dadkan reer miyiga oo kaleeto in loo sheega mooyaane magaca diinta loo sheega mooyaane wax kaleeto ay wax ku nidaam ku samaysan karayaan midna male ayuu ku leeyahay. so waxaa la sheegaa soomaalidu inay yiraahdaan yani ninkii la Axmed Gurey yani waxaa la sheegaa sayidka waxaa la sheegaa magarasad inay ragga inay ku guuleysteen ugaan nidaam sameeyaan nidaamka oo magacyeel ama magac ahaan u sameeyeen inay diin iyo magac wax ku maamulayeen magarasaan. sidoo kale waxaa jira buug magarasad ee qofkii doonaya yani political science ama mushkilada xaqiijita xiisaanaya buugan waxaa Date 8 baa la magaciisa. wuxuu ka sheekeynayaa lacagtan magaranaysa yani dadka ama dowladaha Afrika la siiyo ayuu ka sheekeynayaa. wuxuu u qaybinayaa oo kale waxa la yiraahdo dadka lacagaha la siiyo wuxuu u qaybinayaa ama aid loo yaqaano ama caawimaad loo yaqaano saddex baa lagu qaybinayaa. lacag la yiraahdo maxalla humanitarian baa la emergency aid yani problem iyo mushkilad iyo dhibaato iyo waxa dhacday yani dabeelo ayaa dhacay ummadda marka problem baa ku dhacay in loo gurmado taasi waa qaybta koowaad magarasada ee la dhaho aidka yani qaybta koowaad. qayb labaad waxaa jira la yiraahdo charity based aid qayb kale isna sadaqa ahaan dadka ama loo siiyo magarasa ummadaha loo siiyo. tan ugu weyn mushkilada ugu badan waxa la systemic aid waa qayb waxa la government dowladda kale ay siinaysa si ay waxay doonto ay uga samaysto taana hor dhac bay keenaysaa. sidoo kale qofka xiisanaya inuu fahmo yani problemka iyo يعني general Africa oo dhan ka jira faqrinimada iyo problemka ina buugan buug runtii aad u xiiso badan halka ay istaagi doonaa aad baan idin salaamaya insha Allah ku barnaamij shubci ku fikirkaaga qayb badan insha Allah. Assalamu alaykum.